ciyaarta quruxda badneed ee halkan iyo xaaladii maxaa la yiraahdaa shacabkeena iyo taageerayaasheenaba ay wajahayeen run ahaantii ka maamul ahaan ee degmada Warta Nabadda waxay sharaf weyn inoo ahayd inaan marti gelino hadba ciyaaro noocan oo kala ah sidii loo dhisay garoonkan waxaad aragtaan horumarka iyo sidoo uga qayb qaadanayo isdhaxgalka bulshada anaga ka maamul ahaan waajibaadkeena wuxuu ahaa si nabada oo xasiloon oo wanaagsan inay ciyaarta halkan loogu qabto shacabkuna guryahooda ay ku gaaraan taageerayaasha ah si nabadoon isla markaana qof walba ay diilada nabadda iyo horumarka caasimadana isagoo ku haminayo inuu qaybtiisa ka qaato oo halkan uga tagaa waatahay bal aragtidaada markaad istaado horseed oo guusha raacday maxay kula ahayd ka Zaynab ahaan dad badan baa igu xagliyo asahaatee waxaan leeyahay hambalyo kooxda horseed ee facaweyn kooxda kale ee kooxda MCC ana waxaan leeyahay idinkan ciyaar wanaag iyo maxaa soo bandhigteen maxaa la yiraahdaa xirfad aad u wanaagsan waxaanan idin leeyahay sanado hore aad qaadeen maanta hadii la idinka qaadana wax culeys ma jiro koobku waxa waaye banooni waa cad iyo madow maalintiina qaadaan maalintooda qaadaan hadbo ciyaartooydu way u sameeyeen laakiin taageerayaasha waxay iska yihiin maxaa la yiraahdaa hadbo kuwa guusha ayaga oo kaliya inay raacdo jecel galabta waxa dhacday Super Cup ay wada ciyaarayeen horseed iyo MCC waxaana ku badisay laba eber kooxda horseed aad iyo aad aan u faraxsanahay waxaan u mahadcelinayaa ciidanka booliska Soomaaliyeed oo nabadda aad u sugay waxa kale oo mahadcelinayaa telefishinka dalsan oo qayb ka ahay dalabta tabinta ciyaarta waata ciyaartan ma finaal ay hadisay ciyaartu waxay Super Cup waxa lagu furaa horyaalka awalkiisa la fadhidaa haddii alla ibn 17 bisha oo aan ku jirno ayaa waxa furmaaya horyaalka Soomaaliya haddana waa ciyaarta ka horreysay oo Super Cup oo labada kooxood oo horyaalka iyo Jalan Daawud kala qaaday ciyaarayna heeday sidaas marka horyaalkiina lagu furay haddii ay yiraahdo jamcaha galabtana waxa ay Super Cup waxaan u guuleystay kooxda horseed runtii galabta geemka aan dhalin geemka hore waxa muusan ugu duunayn balse muddadan tababarkii iyo juhdiga aan soo bixinayna galabta insha Allah Ilaahay waa nagu guulay natiijada aan soo baxnay waxay galabta guunya guulaysan insha Allah alxamdulillah waa nagu guulaysan ciyaar qaabka ahayd marka runtii laba tiim waxa waaye oo Soomaaliya ugu awood badan geem walba ay leeyahay waxa waaye waa xamaasadiisu wata balse anaga mar walba muhiimadda waxay noo saarnay inaan guulaysano alxamdulillah guushina waa helnay waatahay bal aragtidiina caqabada aad la kula kulma jirtay inta ciyaarta runtii caqabado waa jiraan balse mar walba 90 minutes la isku yimaado kulli waxa waaye dagaalan badan iyo juhdi badan la bixinaa alxamdulillah anaga dagaalkeena waa ku guulaysanay bal aragtidiina dareenkeena hadda ka warran maadaama runtii dareenkeena lama soo koobi karo aad iyo aad aan faraxsanahay waxa kaliya aan sugaynaa inaan guulaysanay waana guulaysanay alxamdulillah والله سيدنا قرنات حاجة اللي قرنات إن شاء الله قلادات كنا صوصحنا. أي محاس لها أنت عيارتي عقبتها درين. والله مرة بنا نقول استوى صباحي مركا ضد إسلام كي ربي أي مادة قلادات أنا أنقلنا نقول بدي إن شاء الله وعنجعلنا نكستكيبنا صوصحنا.